الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا نجوتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وحاربا إن كل ذا دعاء وقيمة بدن أو إنه إلهي سبحانه وتعالى وحول بقى سميني ست كجرب استاجو لأن كلجا وحما قبسن كرتد نبي محمد وحوج على معاذ أي قدر دار دعاء نجيسو وحور يا معاذ إني أحبك. الله أكبر. معاذ وكجعل هاي arrimahan soo socda samee ducadan ku duceyso ducadana salaada kadib baa fiican lagu duceysto waxaa tira allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik wa saddex arrin saddexda arrin halal aan u sheegno allahumma a'inni horta marka hore waxa allah weydiisanaysa inuu ku caawiyo kaliya wax ma sameyn karti ibn aatana dhaifata shaytaana kugu xiriiro nafa kugu xiriirto waxa ilaahi weydiisanaysa inuu ku caawiyo allahumma a'inni i'aawi marka hore ala dhikrik ilaahuna adiga ku xuso waxa ugu sharaf badan oo la sameeyo waxa inaan ku xuso inaan salaad tukado inaan soomo inaan quraan aqristo inaan adkaarta aqriyo ilaahayow igu caawi allahumma a'inni ala dhikrika ku xusitaankaaga wa shukrik ilaahuna ku mahad celiyo ilaahi nicmadu ku siiyay ina ugu mahad celisid إلهي إنه كسي فيري إلهي عرب كسي أو كودلس دقا هذا وح كمقل يسدو إلهي كسي مو مهد عليسي إلهي عقلي أو كفهم يسو كسي إلهي ما مهد عليسي وشكرك إن إله كو مهد علي إيه وحسن عبادتك ما هي عبادة إيه بدي وحسن عبادة أو في عن إلهي يوسي سدح الرواية إلهي إنه كعاوي عبادة ديسا مهد علنتيسا iyo cibaadatan ugu fiican laana cibaado badan ma tan laaqbal cibaadatan ugu fiican oo ikhlaas loo sameeyo sunnada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam la raaco salaad walba gadaasheeda ee ka fakan ducadan nabi maxamed ayaa u dardaarmay qof uu jecel wuxuu yiri waan ku jeclahay ee ducadan sameey allahu akbar idikan waxa idin la baahay ducadan sameey anna waa idin jeclahay ducadan ayaa idin soo gudbiyay marka ducada markasta salaad kasta gadaasheeda ha ka tagin markastana ku duceyso siina gudbi barakallahu fiik. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.